hal tusaalaana ku filan maamul walba ama Soomaaliya oo dhan miisaaniyadeeda oo dhan hadii la isu geeyo miisaaniyada sanadka loogu talagalay in waxbarashadooda difaacooda nabadgelyadooda hospitaaladooda wax walba dalka horumarintiisa intaas oo dhan waxa ka badan inta ama magaalada Muqdisho ama magaalada Hargeysa looga qaylo 6 bilood ama 3 bilood oo dollarka la qaato marka runtii waa in la isweydiiyo qaad ma shaqo noqonaya investmentiga wadanka dib u gali lahayd lacagta dib u gali lahayd hadii dollar lagu guro dawladana ay ku tartamayaan oo hadda heer diyaaradeed ay gaareen in marketka la isku haysto ana geenay waa ayaan daray noo tahay waxaana ku boorinayaa madaxda iyo madaxweynayaashu way badan yihiin ma sha Allah inay dhageystaan codka hooyooyinka inay dhageystaan codka dadweynaha oo ku taahaya oo ku taamaya wax kale hana lagu bedelo hana laga qabto waa gumaysi casriya oo loogu talagalay maskaxda in looga qabsado oo dhaqaalaha looga qabsado arintaasna waa waajib saaran nin allaala ninkii kartila oo mas'uul inuu ka gilgisho adduunyadu waxay ku tartantaa qarnigan 12aad waa dhalinyarada waxa investment u noqdo oo wadan ku baxaa ama heer ku gaara waa dhalinyaradii Soomaaliyeed meel ay joogaan bal rabaa inay qaad ka cunaan oo ay customer u noqdaan shilin allaala shilinkii ay soo helaana inay labadaas wadan u shumaan qaad ka beerta mentality ahaan aysan noqon dad adduun wax ku soo kordhiya akhirkooda ay noqdaan ninka fadhiyo la jimcaha u kicimayo marka waa ayaan darro weyn runtii aad u maasan tahay inta u gudbeen warbixinadan kale oo ku saabsaneyd UK gaar ahaan London iyo meelaha kale campaign-ka ka wado Soomaaliya waxaa jira runtii sida fiidiyoga ku daawanay codad kala duwan oo dadka runtii ay isdhaafsanay ariyahooda dad oo ku taageersanaa qaadka iyo dad kale hadda soo koobno wadanka waxaa ka jira runtii shaqooyin oo aad u fiicnaan ama qofka runtii noloshiisa ku soo saari karin familka gaar ahaan hooyada oo kale maxaas leedahay runtii hooyadaas oo ay ku korinayso dadka caruurta tusaale ahaan iyo familka inteeda kale haddii ay haysan shaqo kale oo shaqadaas ka fiican mas leedahay inay si wad inay fiican tahay because maadaama haddii wax ka fiican haysan aanu lagu baahaya biilka magaalada ama xaafadda Rashid waa runtii waa su'aal meesha ku jirta waa su'aal fiican waa su'aashii hooyada rays gareynaysa war maxaan haystaa bay tiri maxaan kala sameeyaa ilmahan ku koriya ijaarkan ku bixiya nin iima joogo marka waa tii aan lahaa yes hooyadan xaq bay u leedahay waxa meesha dhigayba waxa laga yaabaa qaadka laftigiisa inuu yahay xaq bay u leedahay xal kalena ma hayso way ku khasban tahay inay qoraxda inta fadhido qaadkaas gato laakiin jimsi ahaan iyo nolol ahaan iyo niyad ahaan wax kaloo choice kaloo loogu bedelo in bay weyday ma ahan macnaha deep down happy kuma aha ereygiisa iyo qaxdiisa iyo isqabqabsigiisa marka waa la isweydiin karaa yes hooyadaas maxaa loogu bedeli karaa cawaalo adigan ku haya qaadka hala joojiyo maxaad ugu bedelaysaa alternative oo haya anigu waxaan u hayay waxa weeye maamulka meesha ka jira inay u abuuraan alternative kale markadyo fruitka lagu gado in loo abuuro maqaayado yar yar oo ay cuntada ku kariyaan nolosha ka soo saartaan dawladuna ay taakulayso oo ay aan ogahay inaysan miisaaniyad kale aad hadda ugu gudubno dhinacan iyo London ama Ingiriiska oo campaign-ka goorma soo bilowday marka hore adiga Ingiriiska campaign-kan horta waxa mar walba waxa la weydiiyay cawaalo qaadkan waxa ku daba dhigay waxaan mar saddexaad iyo mar afraad baqraya dhibkan nin soo maraan ahay dhabahan waa dhabo qof xala anigu ku soo gubtay 2004kii baa ilaahay iga madoobeeyay haddaan anigu ilaahay iga badbaadiyay oo aan naftayda aan ku gaaray ilaahay iga badbaadiyana waajib saaran baan u arkay inaan wax ka dhaho buug qortaaba igu soo dhacday ma gabaydaaba igu soo dhacday 2004kii baan saas ku bilaabay waxaan aaminsanahay haddii intaan anigu iska daayay ilaahay albaabada ii furay haddaan iska aamuso suuqayga iska galo danteeda iska raaco waxaan noqonayaa selfish waxaan dareemay inuu iga saaran yahay wiilasha yaryarka oo walaalahaya oo soo koray oo Ingiriiska ila jooga inaan dhabahan ujeedo godka lagu dhacayo inaan qayliyo aan dhawr godkaas anaa ku dhacayo kaleexda kamiinkan marka wuxuu bilaabmay 2004kii uu bilaabmay ilaa iyo haddana waa dagaalka ku jiro okay marka ilaa waqtigaas soo bilowday aniga runtii su'aalo kale oo badan ku imaan doono ilaa hadda wax kula garab istaagay ma jira maalinta soo bilowday ilaa ilaa alxamdulillah way jiraan Soomaalida waxa ku maamaadaa meedkeeba u dambeeyay ka hadda sii sido dad garab taagan idinka kamid oo ii yeeray oo soo casuumay oo ila soo xiriiray oo yiri macnaha waa ku garab taaganahay cawaalo TV-gan Soomaaliya sadba kamid TV-yada kala kamid masaajidka Arxama kamid
ururka amic oo islamic association oo masaajidda UK sax runtii wixii digri ahaa culimadii hooyooyinka waxgaradka waalidiinta intooda badan way raacsan yihiin laakiin su-aasha istaalla meesha taallaa waxay tahay maxay kula qabtaan marka cawaalo khayr allah ku siiyo dadaal way fiican tahay in la isu duceeyo laakiin waxaa roon inuu qofku dhaho maxaan qaban karaa kusoo kordhin karaa midda aan maanta u jooga halkaana waa inaan reer Birmingham aan runtii la hadlo inkastoo ogahay TV-gan inuu meel walba adduunka laga gaarsanayo haddana maanta reer Birmingham baan u socdaa reer Birmingham baan rabaa inaan la hadlo okay aad u mahadsantahay waxaan rajeynayaa reer Birmingham inay maqlayaan arrintaasi si ugu kor cawaale oo runtii arrinta 2004 2004 ilaa halaan waday in ay garab galaan anigana waa ku garab taagnahay midda xigta waxaa sheegtay in waqtigan runtii adiga dhibaatooyin gaar ah oo nafsad ahaanta ala kulanta ma jira inta cunis ama ku dhex jirtay qaadkan wallahi waa sheeko dheer ogaag baa laga qori karaa sax qaadka marfishka dhexdiisa aniga ambalaas baa iga qaaday sax macnaha waa haddaan soo koobo waa laygu dili gaaray nafteedaan ku waayi gaaray macnaha faamiligayga ku dumi gaaray naftaydii anigu aan lahaabaan waayey macnaha nin marqaanka lagu sheegayo waa qof waalan oo isu qaba inuu saxsan yahay waa ku jiray marka runtii dhibaatooyin badan way iga soo mareen alxamdulilah ilaahay baana mahadda iskale iga madoobeeyey marka way jiraan dhibaatooyin badan baa jira aad iyo aad haddaa kasoo tagno dhinacaas qaadkan intaa waday kambeynka ama ololahan waxaa filayaa haddii lagasoo tago soomaalida inaa u bandhigto dowladda ingiriiska oo wadankan aan ku noolnahay si arrintan wax ay ugu qabato ama maamulkii hore tagay iyo maamulkan isbedelay weli rajadaada ka waran arrintaasi xaggee ku maray alxamdulilah waa su-aal aada u fiican runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meesha hadda wax marayaan aad baan ugu mahad celinayaa kumaankunka soomaaliya oo meel walba joogta oo taageertay kuwii petitionka saxeexay 70 kun oo petition aan aruurinay waanu u tagnay xisbigan hadda taladahay intaanay xukunka qabsan home secretary-goodan la kulanay kuwii laborka ahaa home secretary-goodan la kulanay ballanku wuxuu ahaa in hadday xukunka qabsadaan ay joojin doonaan march bishii 3aad oo 2010kii bay ballankii ay qaadeen tallaabadiisii u horreeyay ahayd qaadeen ay fuliyeen tallaabadiisii u horreeyay oo ahayd in shadow home secretary-ga ama wasiirka arrimaha gudaha uu ka codsado in qaadka arrintiisii dib loo eego haddeer ayay bilaabatay sanadkan bisha tan hadda lagu jiro ayay bilaabatay articalkani waa article actually soo baxay arbacadii hadda shalay ahayd 26 bisha oo ka hadlaya macnaha campaignki qaadka loogu jiray wuxuu gaaray buu ku leeyahay success waana runtii waana arrin la oran karo successki way u dhowdahay 6 sano waxaan bushgaraynaynay war dowladay bahalkan dib u eego go-aankan go-aan aan ahayn gaara hadda dowladdii waa u fadhidaa way qireen in dib loo eego advisor board qoral lahaa loo sameeyey oo arrinta dib u eegaysa nasiib wanaag marka kuwii hore wuxuu uga duwan yahay boardkan annagii baa ku jirna annagii baa input ku leh anigu hadda boardka evidence baan siinaya ama talan siinaya maadaama bahanin soo maraya maadaama aan cuni jiray maadaama aan soo gaadar gareeyay intaasoo saxiixa maadaama aan activista ahay oo communitygii waan hor dhigayaa waana markii u horreysay keligeyna ma aha different Somali leaders fikirkooda way maqlayaan waana meeshaas meesha aan leeyahay Birmingham laftigeeda tolaa iyo Birmingham iyo inka laftigeena oo ka qayb qaata waxaa jirta sida aad sheegtay 70,000 oo qof ina saxiixooda ama runtii ay kugu codeeyeen sida loo istaajin lahaa ama loo joojin lahaa qaadkan inta asoo aruuris adiga inta kale ogeyn ayaa weli kasii badan is leeyahay marka dowladda rajadaada ahaan ma is leedahay in 70,000 maadaama ay aragtay runtii 70,000 oo jaalid Soomaaliyeed ah inay zaid u badan yihiin